kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaad waxaan halkan rabaa inaan idinkula wadaago xogtii wararkii ugu dambeeyay xiisad colaadeed oo caawa ka taagan qaybo ka tirsan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. xiisadan colaadeed ayaa imaanaysa kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ay u dirtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Xoosh uu halkaasi u tagay in halkaasi uu ka furo shir lagu dhameystirayo maamulka ACC Khaatumo. balse shirkaasi oo loo madlanaa inuu ka furmo maalinnimadii shalay ahayd ayaa suurtagelay. shirka ayaa ujeedkiisu u ahaa in shalay uu ka furmo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, balse khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne ku-xigeenka maamulka ACC Khaatumo iyo hogaamiyaha guud ee maamulkaasi Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sababay in uu guud ahaan baaqdo shirkaasi lagu dhameystiri lahaa maamulka ACC Khaatumo. sidoo kale waxaa la qorsheeyay in maanta shirkaas halkaas uu ka furmo, balse ugu dambeyn waxaa hoolkii uu ka furmi lahaa shirka lagu dhameystirayay maamulka ACC Khaatumo la wareegay ciidamo ka amar qaata hogaamiye ku-xigeenka maamulka ACC Khaatumo. goor sii horeysay furitaanka shirkaas waxaa war ka soo saaray garaadka guud ee ACC Khaatumo Garaad Jaamac Garaad Cali, isagoo sheegay in shirkaasi uusan macquul ahayn inuu halkaasi uu ka furmo ilaa wasangeli midaysan laga helo. Garaad Jaamac Garaad Cali hadalkiisa ayaa u muuqday mid qaadadhacaya qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay ku dhameystirto maamulkaasi ACC Khaatumo. magaalada Laascaanood ayaa hadda u muuqata mid gashay jawi colaadeed kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay hogaamiye ku-xigeenka iyo hogaamiyaha maamulkaasi Cabdiqaadir Axmed oo Cali. khilaafkan ayaa sidoo kale imaanaya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay u aqoonsatay maamulka ACC Khaatumo maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya maamulada xubnaha ka ah. khilaafkan ayaa imaanaya sidoo kale xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in guud ahaanba dalka ay ka qabato doorasho qof iyo cod ah, balse ujeedka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa noqday mid ay fahmi waayeen maamulka ACC Khaatumo, wuxuuna hadda u muuqdaa qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in maamulka ACC Khaatumo ay ku dhameystirto mid fashilmay gabi ahaanba kadib markii uu fashilmay shalay iyo maanta qabsoomidda shirki lagu dhameystiri lahaa maamulka ACC Khaatumo. sidoo kale waxaa waxba kama jiraan noqonaya tagista ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare uu tagay magaalada Laascaanood halkaas oo soo dhaweyn diiran loogu sameeyay, isagoona halkaasi u tagay in maamulka ACC uu noqdo maamul ka tirsan dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah. balse ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya qorshaheedii ahaa in maamulka ACC Khaatumo ay dhawaan u aqoonsatay maamulka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ay ku doonaysay in guud ahaanba maamulka ay u dhameystirto shuruudihii laga rabay maamul buuxa oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda u muuqanaya mid fashil kusoo dhammaanaya sababo la xiriira khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas iyo madaxweynaha maamulka ACC Khaatumo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye. sidoo kale shirkan inuu qabsoomi waayo waxaa loo sababeynayaa khilaafka guud ee u dhexeeya maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. walow maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu meelo fagaaraha ka sheegayay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay kala qeybiso ama ay kala goyso maamulka Puntland iyo maamulka ACC Khaatumo. Puntland waxaa lagu xasuustaa doorkeedii ahaa in markii Laascaanood ay ku jirtay jawiga dagaal ama jawiga colaadeed ee dagaalka culus kula jireen maamulka Somaliland inay qeyb weyn ka qaadatay xoreynta magaalada Laascaanood iyo ka saarista ciidamada ka amar qaadanayay madaxweynihii markaas Somaliland Muuse Bixi Cabdi. balse guud ahaanba tallaabooyinkaas ayaa hadda u muuqda kuwo meel cidlo kusii dareeraya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya qorshaheedii ahaa in ay maamulka ACC Khaatumo ka dhigto maamul buuxa heestana shuruudihii laga rabay maamul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonaysay uu halkaasi ku fashilmay. waxaana dowladda federaalka Soomaaliya mar kale isku dayaysaa in halkaasi uu ka qabsoomo shirka, balse weli waxaa halkaasi ka taagan dhaqaaqyo ciidan, waxaana caawa halkaasi laga soo sheegayaa in halkaasi uu ka taagan yahay khilaaf culus iyadoo ay dhici karto in halkaasi caawa uu ka dhaco gacan ka hadal. waxaan ka codsanaya hadday intaa ila soo gaartay inaad subscribe idhaahdo channelka like iyo CRT si aan u helo saaxiibo badan oo adigoo kaleeta aad iyo aad ayaa u mahadsan.